بسم الله الرحمن الرحيم بعض صحافة مركلة وكما هذا علنا سيدا أدمر والبابا دوغها قبترتان ورباهنتا runtii waa la socotaan oo dhacdadii ka dhacday gaalkacyo runtii dhacdo foolxun ahayd aan rabaano ku hadlay magaca shacabka gobolka Banaadir inaan sida ugu adag u cambaareyno falka noocaas oo kale ah annaga muwaadin Soomaaliyeed oo muwaadin Soomaaliyeed shakhsi kasto Soomaaliyeedna wuxuu leeyahay sharaf iyo karaamo oo rabaana Ilaahay siiyay diinteena waxayna faraysaa in waxyaalo qaarkood aan lagu xadgudbi karin oo ay ka mid tahay nafta shakhsiga muslimka ah marka runtii dhacdaas iyada xanuun badan bay ku reebtay shacabka Soomaaliyeed meel walba joogaan marka waa midaan loo dul qaadan karin waa midaan la aqbali karin waa midaan sida ugu adag u cambaareynayno shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan shacabkeena nugul waxay naga mudan yihiin inaan sharafkooda iyo karaamadooda kor u qaadno waxay naga mudan yihiin inaan tusno inay Soomaali yihiin waliba ka sharaf badan yihiin Soomaalida kale annaga waa ogtihiin gobolka Banaadir dadka barakacayaasheena la joogo runtii madaxay noo saaran yihiin waxay yihiin dad runtii adkaysi badan dad runtii Soomaalinimadu dhab ka tahay dad runtii duruufaha ay ku jiraan u baahan inaan dhammaanteen u istaagno dadka noocaas oo kale ah inaan ku xadgudubno inaan u aragno inay yihiin dad dhib ku ah ummadda inaan si kale ula dhaqmo waa wax aan la aqbali karin marka dhacdaas waa cambaareynayna waxaan kaloo ognahay shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay wada karaamaysan yihiin laakiin haddana shacabka koonfur galbeed ka yimid runtii waa dad nabada waa dad bini'aadanimadu runtii ay aad u sareyso waa dad akhlaaqdooda iyo maaragtay asluubtooda iyo Soomaali jaceylkooda wadaniyadnimadooda iyo sida ay diinta u jecel yihiin waa dad runtii madaxa naga saaran marka mana aqbali karno in lagu xadgudbo mana la yeeli doono waxaan ka codsanaynaa marka cid alaale cidii kaalin ka geysan karta ka geysato dadkaas ayaga inta la soo qabto bulshada dhexdooda iyo shacabka ay wax yeeleen hortooda in ciqaabta ay mudan yihiin lagu mutaysto marka waa mahadsantiin